ma jeceshahay inaad timaadid Mareykanka ma rabtaa inaad timaadid wadanka adduunka ugu dhaqaale weyn waa cariga Mareykanka haddaba haddii ay jawaabtaadu tahay ha waxaa laga rabaa inaad buuxisid barnaamijka la yiraahdo DV 2023 Lottery Visa Program barnaamijkan oo dawladda Mareykanka furta sanad walba bilooyinka ugu dambeeyo ayadoo barnaamijka uu socdo kaliya hal bil sanadkan waxaa la qoondeeyay dawladda Mareykanka qoondeysay in 55,000 oo qof ay ka soo daabulan doonto caalamka laakiin ayuu ku xiri doonto laba shuruud oo kaliya salaamu calaykum ciyaarta meel walba joogtaa waa salaamantihiin waa maxamed faarax maanta video waxaan ka hadlaynaa barnaamijka cusub ee DV 2023 Lottery Program barnaamijkan oo furmay shalay taariikhdu markay ahayd arbaco 6 bishii 10 2021 hal maalin ayuu furan yahay shalay duhurkii ayaa la furay wuxuuna application ka dhacayaa November 9 2021 hal bil ka bacdi hal bil kaliya uu furnaanaya marka waxa loogu talagalay barnaamijkan sanadka dawladda Mareykanka Lottery Visa waxay ugu talagashay green card inay ku siiso dhammaan caalamka ee ka soo daabulato dadkaas ay ku xirayso laba shuruud daba waa maxay labada shuruud shuruudda koowaad in sanadkan waxay sheegeen wadamo aysan qaadan doonin iyo wadamo ay qaadan doonaan hadaba Soomaaliya way ku jirtaa Kenya way ku jirtaa Ethiopia way ku jirtaa videogan waxa uu tagay dhalinyarada Soomaaliyeed ee meel waddanka dacalada joogo heesta baasaboor dhalasho waddan kale ama dhalasho Soomaali heesto inay barnaamijkan buuxsadaan ka qayb qaataan Soomaaliya waa loo ogol yahay inay buuxiso barnaamijkan shuruudda koowaad waxa weeye midaas wadamada aan loo ogoleen waxa kamid ah China UK India Mexico Brazil iyo wadamo kale laakiin wadamooyinka badanaa waa la ogolay Africa waddan kale laga ogoleen waa Nigeria inay barnaamijkan buuxiso sababta ay dawladda Mareykanka waxa waaye sanadkii last 5 years oo weeraan 50,000 oo qof ay ka soo qaadeen marka sidaas daraadeed dookada wadamo kale ay u faa'iideynayaan midaas koowaad shuruudaas ka Soomaaliya waa buuxisaa iyo hadaa tahay Kenyan Soomaali ama Ethiopia Soomaali ama wadamo meel kale joogtid shuruudda labaad waxa weeye in aad haysato shahaado dugsi sare ama 2 sano oo shaqo khibrad leh aad ka shaqeysay ayadoo looga baahan yahay hadhow markii lagu qaato shahaadada inaad keentid waa shuruudda labaad ama high school degree inaad haysatid waa qasab high school degree waxa ka hooseeyo ma qaataan waa inaad shahaado sax ah oo legit ah wadanka aad ka buuxinaysid aad ka keentaa ama inaad 2 sano oo shaqo xirfad leh aad ka shaqeyso shahaadadeeda aad keentaa waa labada shuruud kaliya dabcan waxaan rajaynayaa badankiina dhalinyaro badan ay jirto oo jaamacadaha dhigto high school dhameeyay oo Soomaaliya fadlan barnaamijkan ka faa'iideysta labada shuruud waa buuxisan waa baqtiya nasiib hadaba arrinka ugu muhiimsan waxa sanadka markay ku November 9 2020 barnaamijka xirmo waxay dawladda Mareykanka ku dhawaaqaysaa cidda guuleysatay barnaamijka sanadka dambe May 7 2022 ayaa qofkii ku guuleystay loo sheegaya 55,000 oo kaliya ayaan rabtaa qofkii ku guuleystay waxa lagu sheegay email ayaa loo soo dirayaa telefoon loo soo waxa leeyahay safaaradaas tag wadankaaga aad joogtid halkaas macluumaad ka mar interview ka mar process ka mar lacag yar aad bixinaysa visa lagu siinaa Mareykan ayaa lagu soo qaadaya permanent resident ayaa noqonaysa hadaba aan ka warrama applicationka aad iyo aad ayuu u fudud yahay waxa tagaysaa dvprogram.state.gov website-kaas ayaa booqanaysaa website dawladda Mareykan leedahay qaasatan Department of State ay leedahay ee monitor garayso website-ka marka application-ka buuxinaysid waa free waxa lacag laga ma qaadayo waxaan arkay website-yaal badan oo dad ama ay leeyihiin ama fake ah ee lacag ku qaadeen website-kan dawladda Mareykan marka hore lacag laga ma qaadayo waa free soo marka kaarkaaga gelin lacag gelin wax laga rabo malaha hadaba application gudihiisa waxa laga rabaa shuruudahan waa inaad baasaboorkaaga numberkiisa aad gelisaa baasaboorkaaga expiration date-kiisana waa inaad gelisaa waa inaad taqaanaa baasaboorkaaga baasaboor active inaad leedahay weeye expiration kiisana aad gelisaa high school ka dhigatay ama jaamacadda dhigatay ama aad dhameysay waa inaad sheegtaa magaceeda iyo degree-ga haysatid sidoo kale hadaad leedahay xaas iyo caruur waa inaad sheegataa hadaa gabar tahay oo aad marwo tahay oo aad leedahay nin iyo caruurna waa inaad sheegataa hadaa single tahay waa inaad sheegataa inaad single tahay waa muhiim qofkii xaas leh ama qofkii gabadhii mataqaana nin leh oo marwo ah caruurteeda inay sheegato si hadhow u fududaato in loo soo qaado hadii lacala barnaamijka ku guuleysta waxaan aqoon badan hadda ka hor oo ka shalay xaaskooda caruurtooda aan qoranin barnaamijkan ku guuleystay ka bacdi mataqaana rafaad marka hadii runta sheegta hadeertan way ku fiican tahay barnaamijkan wax walba horn qodobka kale ugu muhiimsan ee sheegay waxa waaye sawirka laga rabo inaad gashid
waxaa laga rabaa sawir qasab ah intaad application ka buuxin waa inaad diyaartaa sawir oo passport ah sawir oo gadaashiisa cad yahay waana tusi doonaa video dhexdeeda ku tusi doonaa qaabka loo rabo sawir la rabo iyo sawirka la rabo waa inaad kaamirada aad fiirisaa adigoo ismaal gareynaynin wejiga afkan uu ku xiran yahay sawir caadi ah oo half ahna ay tahay sawirkaas ayay aqbalayaan qasab way sawirka inaad diyaarsid inaad application ka buuxin marka application wuxuu ku qaadanayaa ugu badnaan 30 minutes 30 daqiiqo kaliya markaad application ka dhamaysid hadaba waa inaad printer garaysataa confirmation numberkaaga confirmation numberka inaad printer garaysato waa muhiim waayo May 7 2022 dadkii raaya markii la sheegayo confirmation numberkaas kugu muhiima inaad sheegato sawir ka qaada ama printer garay applicationka markaad dhamaysid sidii hadhow kugu fududaato haddii lacala aad ku guulaysid baqsha nasiibkaas in mataqaanaa aad sheegatid aana ku guulaysid ugu dambeyntii waxaan rajeynayaa barnaamijka inay ka faa'iideysan doonaan dhalinyaro aad iyo aad u fara badan oo Soomaaliya aqoon-yahano hadda jaamacad dhameysay hadda high school dhameysay aarad waxbarashadana sii wadid ama ariga Mareykanka aarad inaa imaadid barnaamijka waa barnaamij muhiim ah fadlan ka qayb qaata wuxuu furmay shalay wuxuu xirmayaa November 9 qofkii raayana waxaa la sheegi doonaa May 7 2022 5,000 oo qof ayuu Mareykan qaadanaya ha Soomaaliya Kenya Ethiopia wadamaas dhan way ku jiraan ka qayb qaadan karaan barnaamijku uu furan yahay inta say ku soo gunaanadaya fadlan channelkayga YouTube maxaan faraa subscribe garee saaxiib la noqo videogaana la wadaag dhammaan asxaabta social media Facebook YouTube iyo meel walba waa aniga maxaan faraa idinkaga tagayo amaana